الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى ولا ليال إلهي بقى محله سبحانه وتعالى مركزتين جوجنو يا حالة كسين كجرنو إلهي بينه مهدنا سبحانه وتعالى ولا ليال خطبتنا سيدين مقليني وحين اسكو حسوسينينا قصة كاملة قصص كإلهي سبحانه وتعالى وقرآنك إنه قشاقي إلهي سبحانه وتعالى وكغور رمايو بعضو صامرتي الدوية كركيدة يددكي سميي يمركي سميين حالدو سيدي كدن بيسي سينوغو ميسانو وينوغو قياس قادنا ما أنت حالدا إنو كجرنو يواقعين إلهي سبحانه وتعالى قرآنك كريمك قصص فربضن بو كغور رماه oo kala duwan oo waxyaalo badan oo markaa waxa weeyaan bulshada dhinacyo badan ka taabanaysa ku saabsan qisadaasi cid bay ku dhacday cidaabaana laga waramaa laakiin quraanka looguma sheegin qisaskaasi inaynu intaynu dhageysano amba aynu akhrino oo quraanka aynu ka akhrino wax bari hore dhacay oo inaga aan khusayn aynu u qaadano laakiin waxa loo baahan yahay qisaska quraanka ilaahay uu ku sheegay maadaama quraanku inaga inala hadlaayo inaga leeynoo soo dejiyay inaynu casharo iyo duruus aynu ka qaadano oo nolosheena markaa waxa weeyaan aynu u bandhigno qisaska faraha badan ee quraanka ilaahay uu kaga warramay waxaa ka mid ah qisadii ku saabsanayd labadii inan ee uu dhalay nabiyullaahi aadam calayhi salaam ee la kala oran jiray sida culimada tafsiirku ay ku macneeyeen haabiil iyo qaabiil la kala oran jiray ilaahay baa inooga qisoonaya oo nabiga markii lagu soo dejiyay rabbi waxa uu leeyahay waxaad ku dul akhridaa nabi maxamed oo qolada yuhuudda ee kutubtii horena ay ku soo degtay warkii labadii inan ilma aadam waqti ku xus oo ku dul akhri ay qurbaan la baxeen ay ilaahay ugu dhawaanayaan oo midkoodna laga aqbalay midkii kalena laga aqbali waayey kadib maxaa dhacay kii laga aqbali waayey baa kii kale ku yidhi waan ku dilayaa waa kaaga dhammaynaya qudhaankaa jaraya kii kale kuma odhan wax kale ee wuxuu yidhi haddii laga aqbali waayey ilaahay dadka muttaqiinta ee ka baqa ee ilaahay ka cabsada ayuu ilaahay ka aqbalaa wixii ay bixiyaan iyo wixii camal ay la yimaadaan kuwaabuu ilaahay ka aqbalaa haddaad adigu leedahay waan ku dilayaa anigu gacantayda xaggaaga u fidin maayo oo ku dili maayo yacni si maaragtay si aan kuu dilo gacantayda anigu kuu qaadi maayo ma ana bibaasidin yadiya ilayka liaqtulak si aan kuu dilo aanu gacantayda kugu fiiqi maayo muxuu ku sababeeyey inaanu dilahayn maxaa ka hor taagnaa miyuu ka cabsanayey miyuu ka xoog weynaa miyuu ka hub badnaa shay keliya buu sheegay wuxuu yidhi innii akhaafu allaha rabba alcaalamiin ilaaha rabba caalamiinka ah ee xaaraantimeeyey qof inaan xaqdarro ku dila ayaan ka baqayaa waayo adduunyadan waan ka tegayaa ilaahay baan hortegayaa qofkii aan dilay maxaad u dishay baa lay odhanayaa taas buu ku jawaabay wuxuu ku raaciyey weliba uu yidhi innii uriidu an tabuu'a biismii wa ismik fatakuuna min asxaabi innaar haddaad adigu go-aankaa xun qaadatay anigu waxaan doonayaa
dembigayga iyo dembigaagaba inaad qaadato dusha adigu aad u ridato oo goordhow aad dadka ahlu naarka aad noqoto ayaan doonayaa lamuu jeclayn laakiin waxa weeyaan dee haddaad ka joogsan weydo sidaabuu xaalkaagu ku dambaynayaa wuu yidhi arrintaasina wadalika jazaau daalimiin dadka daalimiinta ee dulmiga sameeya abaalkooda ayaa caynka ah inay asxaabu naar ay noqdaan ilaahay subxaanahu watacaala kii kaloo inooga warramay wuxuu naftiisii waxay u adeecday oo u hoggaansatay yacni waxa weeye qatla akhiih in walaalkii uu dilo walaalkii inuu dilo ayay naftiisii u hoggaansatay faqatalahu wuu dilay markii uu dilay ayuu indhuhu markaa waxa weeyaan ay u xarkeen fa asbaxa min alkhaasiriin kuwa khasaaray ayuu ka mid noqday markii uu dhagar galay weliba dhagartu sii kala xume markuu walaalkii dilay ayuu miyirsaday oo isagaaday inuu khasaare uu markaa waxa weeyaan ku dhacay adduunna uu khasaaray oo garabkiisii walaalkii uu dilay aakhirana ay naari ku sugayso ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inooga warramay inuu ilaahay u soo diray qofku markuu ka baydho waddada xaqa ah markuu dariiqa xumaanta qaado markuu jariimada ku dhaco caqligii wanaagsanaa wax ku galagaranayay baa ka taga xikmaddaa ka lunta wuxuu noqdaa qof aan waxba fahmahayn ilaahay subxaanahu watacaala isagoo ku wareersan oo walaalkii kolba meydkiisii dhinac u qaadaya ayaa ilaahay wuxuu u soo diray oo wax lagu tusay tuke fabacatha allahu ghuraaban yabxathu fi lard ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u soo diray tuke dhulka ma faqfaqanaya si uu u tuso kayfa yuwaari saw'ata akhi sida xumaanta walaalkii uu iskaga aasayo ee uu iskaga qarin lahaa ayuu ilaahay subxaanahu watacaala tukaha u soo diray markaabuu naftiisii dib ugu noqday oo uu iscanaantay oo isla yaabay markaabuu isagoo calaacalaya ilaahay nooga warramaya isagoo leh yaa weylataa acjiztu an akuuna midla hada alguraab alla hoogayge ma waxaan xataa kari waaye oon garan waayey intaa tukuhu uu samaynaayo tuke mid kale intuu dilay bakhtigiisii soo qaaday oo god u qoday aasay buu arkay halkaa buu kaga dayday uu yidhi markaa kaanad intuu gartay miyaan garan waaye ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inoogu sheegay fa asbaxa min annaadimiin kuwa markaa murugooda ee nadaamooda ee waxay sameeyeen ka qoomameeya ayuu ka mid noqday walaalayaal waxaa markaa culimmadu ay tilmaamaan nebi aadam calayhi salaam in yacni waxa weeye da' kastoo u dhalataa ay ahaan jireen inan iyo inan kadibna waxa weeye da'da kale ku xigta oo iyaguna inan iyo inana in xaaladii jirtay markaasoo bani aadamka dee bilowgiisii ahayd ay labadii wada dhashay maaha labada kaleba ay isguursan jireen kadibna sida mufasiriintu ay sheegeen yacni waxa weeyaan haabiil inantii la dhalatay baa qurxoonayd tii qaabiil la dhalatayna way ka yara duwanayd oo way fool xumayd kadibba wuxuu yidhi waxa weeyaan anigu walaashay iyo quruxda badan leh cid kale ii dhaafi mayso aabbahood bay iskula yimaadeen aabbahood wuxuu yidhi war bal ilaahay wax ula baxa oo qurbaan la baxa kii laga aqbalo ayaa qaadan doona waxa weeye inantaa isku haysataan waxaa laga aqbalay qaabiil labadiiba waxbay la baxeen waxbaa la sheegaa markaa waxa weeye neef iyo dib iyo wax inay la baxeen mid inuu sarax ka shaqayn jiray midna xooga ka shaqayn jiray kii laga aqbalay ayaa inantii yeeshay kii kale xasad ayaa qaaday wuxuu yidhi sidee u dhici kartaa amarkii ilaahay wuu khilaafay kii waalidkiina wuu khilaafay kadibna dhagar buu galay oo walaalkii buu dilo sida aynu ka warranay ayuu ilaahay subxaanahu watacaala inooga xikooyooday haddaba qisada ilaahay subxaanahu watacaala uu qur-aanka ku sheegay waxa weeyaan looma sheegin warkaa intaynu maqallo inaynu halkaa ku dhaafno maxaynu ka qaadan karnaa weliba xaaladda maanta aynu ku jirno iyo wixii shalay dhacay aynu arkaynay maxaynu walaalayaal ka faa'iidaysan karnaa maanta waa la wada murugaysan yahay maanta waxa weeyaan qof waliba oo inaga mida
وحويا واحد عقف فرح سليم تشيله ديك بعد داتي حنشرا قبتي دذوا الشباب يستلي يعني وحويا دولة يشعب كذا يستلي دتكي وحويا اسمدنا إن يجوا سلاليان أيها وحويا استلي ولا ليال وحال فيلنا هنا ما تلوف الدين أيها دعي وحويا كي سمية كي أمرك بحية مذول ما وفرت دحية كقنيسة هاي أيها ولا ليال ما تدعي سلا درادت عشرنا إنه كقادر قصنا وحكمنا مركب كوبات كتاب كقرآن كين دحية الله إنه حقي سجلوا إلى إنه كنا قني إنه هيستطيع عقوبة مركب كتقني إنه وحين قرقرني كنا قمويني وحوينا إنه قتلنا تيجنا أينو كهلين إنه دونت إسكاس اللون يستيلو أينو قطي إنه كتاب حق إلهي كي يبدو يحي إلهي وكذا رمي قصص كي هرسين وعبرة قادنا وضدك مؤمنين تدبتي أو حقاقاتان سيدا كلو حنو كقادنا سيدا عدة إلهي وحكا أقبلين يتهي عدة قلبي قودو فيويا يا عملك يا وحي قوانيا إلهي درادي كتحي هذا وحيالك لا يسوق قران إن أنا مركا وحويا إلهي أنا أقبلهين وحكمل ولا ليال ضدكو زمن كستول تشوغو يا وقت كستول مرة يا ملك كستول تشوغو قارنا وفرياش خيرك قارنا وفرياش شركة يا فدنا يا دبعتوا تابا لو باهين ولا ليال قفكو يسقيمي مددك فرها خيرك فرها وابين نغلينا مسددك شركة يا فدنا كشقيين ونغلينا وحكو جرا ولا ليال إن دبيعة بني آدم كاي تاي إنت أي فتنة سيجي دانسان تاي إن لقول دي ريهاي أو وحويا اللي تشوتشين كروايو لكن مركاي دعوة وعلاعل يمرقو يقوم ما يكدم بريسو وحويا سيدا إلهي سبحانه وتعالى إنه الرمي ولا ليال وحلوبها هي حالة ما أنت تشرته إنه أركي إنه وحلقوا هجاجي كراه إن الإله كتاب كيسا ونقلنا إن الدواقينا دتك على خير كأي أهل الصلح قال مقله إلهي آيدا وحكدا بسمركو قصة كور رمي أو أيضا لفتين عبرو يعشر إلهي وحكدا بيسي آيد وكور رمي أرنت محاسن الله يالي من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل بعدنا دعوة أوجد أي إلهي اللي وحن كفر ليالي غير بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض قفك نفحق در كدله أن بأر لنا فسادية إنه لم يقف دتك أردن دلي قفك دتك بدبادية دلك كبدباديانا إنه يهي قف دتك أردن يعني وحوية بدبادية إنه يهي سيدا دراد إصلاحة يا خيرك iyo heshiiska oo laga shaqeeyaa waxay tahay walaalayaal waxay shariicada lagu dhiirigelinayso waxaynu ku baaqaynaa oo in waxa weeyaan magaca culimada iyo dadka waxa weeye wanaagga doonaya aynu ugu dhawaaqaynaa oo in markaa waxa weeyaan dadka u sheegaynaa ishaya ee dadku ay markaa ku dhex dhimanayaan dadka waxa weeyaan hadday tahay dawladda iyo markaa waxa weeyaan xukuumadda hadday tahay iyo hadday tahay waxa weeyaan dadka markaa waxa xisbiyada dhammaantood waxaynu ugu baaqaynaa marka koobaad in ilaahay laga baqo subxaanahu wa tacaala go'aan kasta oo la qaadanayo in ilaahay lagaga baqo qof walowba oo mas-uuliyad maanta haya ilaahay keliga adiga kula xisaabtamaya oo waxa weeyaan lagu weydiinaya wixii go'aankaaga ka dhashay هل وحي دبعته وركا وحويان وسوتشيدي والغو ويديني إلهي عبسيديسة مد هاسي مد سنة مروي بوينو اسكو دردار مينا وانا رينا ولا خصيصة أرنت اللباد بدك وحويان اسهية ما أنت وحويان دبتو مارتي دبتها صوته ونقضي هديتها معارضي هديتها محافظ با وحن الله نهي إلهي سبحانه وتعالى إنتو كبقنا المسؤولية دينا قراتان دوبسكو بصوى النقضة وحي وضا هذا إيو وناق لغو قاري وآيو دقال
يقح يدباتو يعنف الجاري ماي تاريخ دون وحوي وينو مرخاتي انت صدق قلبي نصامري ميدو كفاينا يا قرنايا سوي كده قال كي حبشي يا صومالي ورجالين ما كفاية مسوي كو خسارة أنا وحنا مسوي إني كو خسارة كي أنا قال سيدوني يا سيداتكي وحنا مسوي أنا إني كو خسارني قارب إسلا الدولة بعدين دلتيو ملبا قادينو هو حلصنا نغتين وحوي حرية ديني ورمسا إني قدنتي ورمسا حتى إني قبضي ورمسا هو دمر كو قبلني ورمسا خساره إلا ما أنت تاينا هيستويه kuwa dadka aaminsan baa inaynu ku khasaarnay kii 4 iyo 9 naga dhaxdeena ka dhacay midba midkii uu ka dambeeyay uu ka saxanuun badnaa oo waxa weeyaan dadkii wada dhashay waxa weeyaan ay isdhibaateen oo isdileen oo ku kala qaxeen ka maanta waxa weeye durbaanadiisa aynu arkaynaana waa ka sii xun yahay walaalayaal ilaahay ha laga baqo subxaanahu wa ta'ala oo wada hadalka iyo heshiiska halagu soo noqdo wallahi inaanu ka faa'iidahay wallahi inaanu dawladdu ka faa'iideen haddii heshiiska diido wallahi inaanu mucaaridku ka faa'iidahay heshiiska hadduu diido cudub xun baa ka dambayn doonta waxa weeye walaalayaal waxaynu leenahay golayaasha qaranku leeyahay ee ummadan mas'uuliyadda u qaaday hadday tahay guurti iyo hadday baarlamaan tahay walaalayaal waxa looga baahan yahay inay qaataan waajibkooda oo qayb ka noqdaan isku soo dhawaashaha ay qayb ka noqdaan xalka oo go'aankooda ay qaadaan oo waxa weeye khaasatan odayaasha waaweyn ee guurtidu waajibkooda ay qaataan oo ninka khaldan khaladkiisa u sheegaan oo isku soo dhaweeyaan waxa ka mid ah walaalayaal oo ku baaqaynaa oo nagu yeelanaa dadka odayaasha yaan madax dhaqameedka ganacsatada culimada aqoonyahanka inaynaan noqon dad daawada fidnadu inta ay markaa waxa weeye dusheena ay ka dhacayso inta ugu yar waa inta ay shalay aragnay ilaahay nagu markeena way ka weynaan kartaa haddii xal la waayo waxa loo baahan yahay walaalayaal dadkani waa dadkeennii inaynu go'aanka uga qaadano waxa ilaahay awood iyo aqoon ina siiyey si aynu markaa xal loo gaari lahaa qofna kama weyna talada laakiin waxa loo baahan dad isku duuban oo isku xiran oo waxyaalada kale dhan meel intay dhigaan siday ummadda u badbaadin lahaayeen gaadha ugu dambeyn walaalayaal waa inaynu ogaano dhiigoo la daadiyaa shareecada halkuu ka taagan yahay waynu arkaynay qisadaas ilaahay nooga warramay ilaahay wuxuu ku sheegay waman yaqtul mu'minan mutacammidan qof mu'mina oo ilaahay rumaysan badheedh u dila lama sheegin kaas askariga lama odhan waa laga dhaafaya hadduu badheedh u dilo lama odhan waxa weeyaan ka mudaharaaya hadduu askariga isagu laftiisa u dilo waa laga dhaafaya qof baa la yidhi qofkii qof muumina badheedh u dila abaalkiisu waa maxay fajazaauhu jahannam abaalkiisu waa naarta jahannama khaalidan fiiha isagoo ku waaraya waqadiba allahu calayhi calada ilaahay waa u taala walacanahu iyo nacdashiisa cadaab darana ilaahay waa u diyaariyey 5 ciqaabood ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u sheegay sidaa daraaddeed ayaa loo baahan yahay walaalayaal dadka mas-uuliyiinta ee amarku gacantooda uu ku jiro askarta yacni taliyayaasha cid waliba inay mas-uuliyaddooda qaadato oy ka shaqayso siday qof u badbaadin lahayd aanay ka shaqayn siday qof u dili lahayd dadka markaa waxa weeye xisbiyada hogaaminaya iyo dadka mudaharaadka samaynaya cid walibana ay mas-uuliyaddooda qaado haddii midna dhagax soo qaato midna uu soo qaato xabad waxa weeye waxaynu arkaynay unbaa dhici doona ilaahay subxaanahu wa tacaala ha laga baqo rabbi ha loo noqdo nabigeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam labada qof ee muslimiintii hadday seefiska la hor yimaadaan ka la dilay iyo ka wax dilay labaduba waa ahlu naar buu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam saxaabadu markii ay weydiiyeen rasuulka ilaahay oo ka wax dilay garanaye kan la dilayna maxaa uu naarta ku gelayaa wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu liannahu kaana xariisan calaa qatli akhiih wuxuu ahaa mid ku hamuumaya oo go'aansaday walaalkiisa kale inuu dilo
ولقى الرئي مويا نسينا قعان بيوحي سلابكم متيسي سقنا ناركم متيست وحويان قفك وحويا صعب ديقة قالي يعني وحويا ناربكم متيسانيا قفك انت آنو ديقلين قف حريتك النال او مركا قدب اللهين بنغنيا لا يزال المؤمن فسحة في ديني ما لم يصب دما حراما هذا قفك ديق اسلام وحارانا آنو قلين ما انت ديق له ايا دوكو دقاقيا أرلو إلهي عليد كل غنيسة وقف والبو كشكية ولا ليالت أرنتاسي قف كسيوتا الله إلهي وحن ويدي سرنا سبحانه وتعالى وحاد عين هالكاين نجا قبوتشيو إلهي سبحانه وتعالى النبت قليه النعمين وقدم بيسيو حالة ولا ليالمات ينو كتشرنو أبارها إيو حوية سير برركة إيو قاتشرة إيو حنون كتشرة وحوية ولا ليال مقادي كرنا وحكاله إلهي هلا قبقو دد كان وحويا المسؤولية داس إلهي واكل حساب تميا هو ذي كمان وحويا قبل مي كوا وحويا نوبت كود الدواء هي دعضي وحويا ما أنت يقول يعني صور هذا نركي وحي يقولنا حدين بدنا أثميدة أو وحويا كرسي غريال يهويو وحوي كرسي حبل إسكان دقيس أو شارع تاجن حي قلب سطي ويرم المهدي ويرم حي قلب سطي وحوي أنا أباين الكسواي محو قلب سطي كم هردي سدود محو قلب سطي أسكر قلب دخل محو قلب سطي وحلو باهي ولا لين إله إلا قبقه الله إيجو في النلو أنت أي دودة هي بين وحكة بكرنا وإلهي نقوم بلاريو نقوم عصليو إلهي سبحانه وتعالى دتك قلوبته ذا يسكو سوتشيريو إلهي سبحانه وتعالى فدنا ذا نقدميو إلهي سبحانه وتعالى عقلك هوا فتشي دتك مسؤولية دعية إلى فهمان وحويا وحال مذيا هي وحودك كم مذيا إلهي الدوحن ويدي سرنا سبحانه وتعالى إنه مركا وحويا قلوبته ذا يسكو سوتشيريو ثم صلوا وسلموا من أمرت بالصلاة والسلام عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي الله عن خلفاء الأربعة وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين اللهم اصلح امورنا يا رب العالمين اللهم الف بين قلوبنا يا رب العالمين اللهم احقن دماء المسلمين يا حي يا قيوم اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا الرخاء وسائر بلاد المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه